gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa la sheegay in uu habeennimadii xalay ahaa wajiga mobile kaga dhuftay gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe kadib markii Faysal Cali Waraabe uu aflagaadeeyay mas'uulkan hooyadiisa. Faysal ayaa la sheegay inuu ka dhaawacmay ilkaha sidoo kalena uu dhaawac ka soo gaaray sanka. ismaandhaafka labada nin ayaa ka dhacay hotelka Mansour oo ay ka wada casheynayeen. waxaa la sheegay in Faysal uu si xun u aflagaadeeyay hooyada dhashay Axmed Cabdi Dheere mas'uulka ka tirsan xisbiga xaakimka ee kulmiye. waxaa la sheegay inuu mas'uulku aad uga carooday kadibna uu Faysal mobilkiisa iPhone-ka ah wajiga kaga dhuftay. Faysal Cali Waraabe ayaa lagu tiriyaa inuu yahay siyaasiyiinta Somaliland ee ugu afka dheer inta badanna waa nin hadal kulul hadaladiisuna yihiin kuwa badanaaba khilaaf keena amaba la isku khilaafo. inta badan Faysal waxa lagu yaqaanaa hadallo uu soo tufo oo calooshiisa ka yimaada mana ahan sida la sheego siyaasi wax qaris leh laakiinse aflagaadada uu geystay Axmed Cabdi Dheere ayaa ku noqotay dharbaaxo lama ilaawana. Axmed Cabdi Daahir iyo Faysal Cali Waraabe ayaa labaduba ka soo jeeda beesha Isaaq waana laba nin oo sida la sheego qaraabo soke ah waxayna ku sugnaayeen goob ka mid ah xaafadda qabiilkoodu degan yahay ee Mansour ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku badan yihiin qabiilka ciidagalaha oo labada nin ee ka soo jeedaan. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Daahir ayaa ah nin inta badan la sheego inuu yahay shakhsi afgaaban oo aan hadalkiisu badnayn waana nin la sheegay waana nin inta badanna ka xanaaqaba hadallada tufta ah ee Faysal uu soo gamo kuwaas u muuqda kuwa xanaaq